dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee madashan ka soo qayb gashay mudanayaal iyo marwooyinba oo uu ku mudan yahay madaxweynaheenii hore mudane daahir riyaale kaahin iyo marwadiisa siyaasiyiinta waaweyn madaxda xisbiyada xubnaha wasiirada salaadiinta iyo siyaasiyiinta faraha badan ee madashan jooga musharaxa xisbiga wadani dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxay la tahay goor gaaban hadalkeedna gaaban. munaasibadani waa munaasibad ujeedadeedu aanay mugdi ku jirin oo ay caddahay. waxa weeye waa dhimo sharafeed lagu maamuusay madaxweynaheenii hore madaxweyne daahir riyaale kaahin iyo marwadiisa, innagana aynu la soo xoojinay innagoo u qabna niyad sami iyo wanaag maamuus iyo milgo badanna uu inagu leeyahay. mas-uuliyiinta qaranku iyo madaxdeennu qarankani wuxuu ku dhisan yahay qaran la wada leeyahay weeye, waana qori isu dhiib. maalinba nin baa xilka haya, kuwa dhintay iyo inta noolba 5 madaxweyne ayaa jamhuuriyadda somalilan soo maray. madaxweyne daahir riyaale kaahin waa madaxweynihii 3aad ee qarankan. mar maamuus buu inaga mudan yahay. waxaa dawaa in la yidhahda madaxweyne, xataa maaha madaxweynihii hore. maamuusku leeyahay waa madaxweyne, dunidu saasaa loo isticmaalaa. mar labaadka madaxweynahani taariikh fiican buu inagu dhex leeyahay. in aynu kaga masuugno kaga bakaylana maaha. siyaasiyiintu dhaqanka aynu iminka yeelanay waxaa ka mid ah inaynu taariikhda iska dafirno. ummadaha goobtii taariikhda iskama dafiraan. waa loolamaynaa, waynu kala aragti duwannahay, laakiin waynu isu qiraa wixii taariikha ee wanaagsan. wixii dhaliilana waa la sheegayaa. qof suxun iyo mudhi ma jiro. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mooye saxaabadii fadliga badnayd ee ifka jannada loogu bushaareeyey baa dhaliil aan lahayn. abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan. cuhmaan binu cafaan ayaa la dhaliilay oo lagu yidhi isagoo maalin cabdillaahi bnu cumar kacbada maraya ayuu ninku yidhi cabdillaahiyow, cuhmaanoo amiirkii muuminiinta ayuu yidhi soo markhaati kama tihid inuu cuhmaan beder aanu soo xaadirin. markaasuu yidhi haa. markaasuu yidhi markhaati ma ka tahay inuu uxud dagaalkii cararay cuhmaan oo kuwii dagaalka dhabarka jeediyaya? buu yidhi haa. markhaati ma ka tahay inuu baycatulcaqaba maalintii fatxulmaka aanu gacan dhiibin oo nebiga gacantiisu saarin? markaasuu yidhi haa. deed wuxuu yidhi allahu akbar. yacni wixii uu qabay iyo doodu ku dhaliilaya buu u qiray, dhabarku jiidi. warkaalay buu ku yidhi cuhmaan beder wuu ka maqnaa, waan kuu sheegayaaye waxa u dhaxday ooridii inantii rasuulka way bugto, sakaraad bay ahayd. nebigaa fasaxay, wuxuu ku yidhi waxaad leedahay ajarka reer ahlu beder, sahmigiisana waad leedahay. maalintii uxidna dhabarkuu jeediyey. ilaahay baa dad badan baa dhabarka jeediyo, muslimiintuba way jabeenoo ilaahay baa yidhi walaqad cafa allahu, ilaahay baa cafiyey. taana markhaatanka maalintii baycatulcaqabana waan kuu sheegayaa, nebigaa ergo ugu dirtay maka. nin qurayshiya buu ahaa, nin dhaabuu diruu waayey. markuu beecadii dhibayno gacantii cusmaanna waa tan, labadiisii gamcood buu isa saaray. war ninkaad dhaliilaysaa waa kaasuu yidhi. waxaan uga socdaa daahir taariikh wanaagsan buu leeyahy oo fiican. hogaamiyuhuna waa inuu wanaaggiisu ka bataa xumaantiisa. nebi maxamed wuxuu yidhi qofka 40 sano gaadha ee xumihii wanaaggiisu khayrkiisu sharkiisa ka badan waayo, naar meel ha ka yeesho. waa hogaamiye wanaagsan buu ahaa, sifooyin fiican leh. dadka wanaagsani duntoodu isma beddesho. nebiyullaahi yuusuf ayaa isagoo oo jeelka ku jira raggii la xidhnaa waxay yidhi innaa naraaka min almuxsiniin, kuwa wanaagsan baanu ku aragnaa.
isagoo masar khasnadaheeda hayana walaaladii waxay ku yidhaahdeen kuwa wana innaa naraaka min almuxsiniin nabi yuusuf isma bedeli alwaqtu laa yuqayiru alashkhaas bal yudhiru xaqiiqatahu waxaan leeyahay intaa markaan ka gudbo madaxweyne daahir yaale madaxweyne dul badan buu ahaa waxaan madaxweynaha ka raali gelinayaa maalin dhoweyd shirweynihii xisbiga kulmiye anigoo ka hadlaya baan soo magac dhabo ku leexday madaxweynaha waxaan aada uga mahad celinaya mar labaad anoo taa ka raali gelinaya rag aanu isku xirannahay baanu wada hadlayna hadalkun baa iga siibtay hadalkuna waa la yidhi intuu uurkaaga ku jiro ayuu ammaanan yahay halaatatun laa tacuud saddex ma soo noqoto baa la yidhi kelimatun idan dalaqat kelmadii hadday kaa baxdo ma soo noqdo wasahmun idaa rumiya leebna haddii la gano ma soo noqdo wazamanun idaa mada waqtina hadduu tago ma soo noqdo waxaan leeyahay aad baan ugaga mahad celinayaa halkan nin joogo wariyaabaad madaxweyne daahir waraystay wuxuu ka waraystay hadalladii meeshaa laga soo qaaday hadalkii maxamuud xaashi ku yidhi ka warran buu ku yidhi maxamuud u jawaabi maayo maxamuud u jawaabi maayo waa nin odaya wanaag badan baa naga dhexeeya madaxweyne daahir raalikan hoggaamintiisay muujinaysaa hadduu nin fudud yahay ama cadho badan ama dee waxa weeyaan dee wuu afku furan lahaa waxa naga dhexeeyey iyo wanaagyada kale ayuu qiimeeyey iyo dadnimadaydii kale dabeedna wuu iiga turay wuxuu odhan lahaa wuxuu ihi maxamuud waxba odhan maayo wanaag badan oo kalaan ku ogahay anigana ilamuu hadlayn buu yidhi aad baan uga mahadnaqayaa